kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta Bollywoodka waxaa ku soo qaadanaynaa sababtii uu Salmaan Khan uu ku waashay jacaylkii Aishwarya Rai 18 sano ka hor. wax walba ku saabsan nolosha aktarka Salmaan Khan waa mid ay ka helaan dumarka gaar ahaan gabdhaha ugu caansan Bollywoodka. Salmaan Khan waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay jilayaasha loogu jecel yahay dalka intii ay guud ahaan caalamka, asoo xiriir la soo yeeshay dumar fara badan laga soo bilaabo Sangeeta Bijlani ilaa Katrina Kaif. haddana waxaa la wada ogsoon yahay in qofta kaliya uu sida dhabta ah u jeclaaday ay ahayd xaaska Abhishek Bachchan Aishwarya Rai. jacaylka Salmaan iyo Aish ayaa bilowday sanadkii 1999 balse dadka qaar ayaa isweydiiyay waxa Salmaan ku dhaliyay inuu jacayl u qaado Aish oo xilligaas ahayd aktarad aad u da'yar. intii la ku guda jiray wareysi uu bixiyay Salmaan Khan 18 sano ka hor wuxuuna ku sheegay sababta ka danbeysa jacaylka waalida ee uu u qaaday Aish. wuxuuna yiri, waan jeclaa Aishwarya Rai, waxaan u qaaday jacayl taacad ah anigoo eegeen da'da yar ee jirtay xilligaas. waxay ahayd gabar Hindustaani ah, waxay ahayd mid aad u ixtiraamta waalidkeed, waana sababta ugu weyn ee aan jacaylka ugu qaaday ayuu yiri Salmaan. तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। inkastoo xiriirka Salmaan iyo Aish uu jiray waqti kooban oo aan ka badnayn 3 sano, haddana Aishwarya Rai maanta waa xaas oo waxaa qaba wiilka Cali Dheere, halka Salmaan uu weli toob yahay oo uusan guursan. gabadhii ugu dambeysay Salmaan lagu xanto waa qalanjada reer Romania Lulia. inkastoo uusan Salmaan shaacin xiriirka, haddana waxaa la sheegay inuu dhowr jeer booqday dalka Romania si ay u kulmaan. जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। haddaba Salmaan Bayi waa adooro miisaan culus ku leh Bollywoodka, wuxuuna shacbiyad ballaaran ku leeyahay guud ahaan caalamka. aktarkan magaciisa oo dhameystiran waa Abdulrashiid Salim Salmaan oo ku caan baxay Salmaan Khan. waa 50 sano jir, weli ma uusan guursan waana toob.
dadka qaar ayaa aaminsan ama ku xanta Salmaan in weli qalbigiisa aysan ka go'in Aishwarya Rai. daawadayaal barnaamijkii falaqaynta Bollywoodka waana ka intaas waxaan ila socodsiinaa anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. waxaa fududeeyay ama soo saaray Home Films. ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है। का चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो।